dadka xanuunsanaya in quraan la saaro ama adkaarta lagu akhriyo waa sugan tahay waana la isla ogol yahay laakiin sida la yaqaanay ruuxa quraanka lagu akhrinayo waa inuu kula joogo kadibna aad ku tufto markaad akhridaba aad ku tufto saasaa la yaqaanaa laakiin ma jirto culimadii horena kama hadlin wax la yaqaanayna ma aha ruux kaa fog intaad telefoon u dirto ama khadka kala xidhiidhood meesha quraan ku akhrido inaad halkaa kaga tufto wax la yaqaano ma wax hore u jirayna ma wax la yaqaano tufmada rasmiga shariicadu taqaano waa ruux kula jooga oo aad ku tufayso oo akhrinayso oo ku tufayso laana tufmadaasa yaa waxa weeye ayaa muxuu ahay la socota akhrinta ruuxan kula joogina tufmadaadu gaari mayso ruuxan kula joogin tufmadaadu ma gaarayso sidaas daraadeed masaladaasi mas'ala salle ma hadduu ruuxu marka uusan kula joogin u ducee ducada sax ducadu iyadu male ama kula joog ama ka maqnaado laakiin tufidda adkaarta iyo quraanka la isku tufayo ruux kula jooga ayay ku soo aroortay asalahaanna sidaas weeye wallahu a'lam